متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها، كن متقنا تلقى بنفسك فرحة تحيا بها، كن متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها، كن متقنا تلقى بنفسك فرحة تحيا بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawo barnaamijka haw laqada maanta waxaan kaga warramaynaa astaamaha laga rabo qofka muslimka inuu ku sifaysnaado, taasoo ah malaha wanaagsan. malaha wanaagsan waxaa ugu horeeya inuu alle ka fisho mala wanaagsan qofka. alla waa kii ku lahaa xadiis al-qudsi, addoonkaygu waxa uu iga fishaanahay. alla oo edbinaya muuminiinta markay dhacday xaadisadii xadiisul ifku ama been abuuradkii laga been abuurtay umuna Caaisha, waxa uu yidhi alle: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا وقت قاعد مقشين بين أبورتك مي ملايان مؤمنين ترقع المؤمنين تدمركم مي ملايان خير مي ملايان ومي إلهدان وبين أبورت عد. نبي قو أمانة ملاها وناكسن وحاو يلي ملاها اللي أود وناجسة وحاو كميدها عبادة اللود وناجسة. nebiga waxa laga wariyay xadiis micnihiisu ahaa xurmada ay Kacbadu leedahay iyo xurmada mu'minka Ilaahay agtiisa waxa weyn xurmada qofka mu'minka maalkiisa iyo dhiiggiisa. Kama layso mu'minka khayr. nebigu wuxuu nagu bogaadinay calayhi salaatu wasalaam inaan wanaajino malaheena. hadallada laga yidhi malaha wanaagsan waxaa ka mid ah qofka walaalkii dhaqan wanaagsan ku aqaana inuu dhageysan ceebaynta dadka kale. qofka daahirkiisu wanaagsan yahay gudihiisu inuu wanaagsan yahay rajaynaynaa. faa'iidada uu leeyahay malaha wanaagsan waxaa ka mid ah waa dhammaystirnaanta iimaanka. waxa uu xidhaa albaabada shaydaanka, waxa uu kordhiyaa jacaylka bulshada. xaalad kastood ku jirto malahaaga wanaaji. allah haynaga dhigo kuwa malahooga wanaajiya. warqadeena maanta halkaa inoo joogto.